nin oo aad ugu mashquulsan rabitaankiisa ciyaarta ayaa go'aansaday inuu qubeeyo ilmihiisa oo hal bil jir ah isagoo keligiis kaga tegay musqusha. laakiin markii uu bilaabay ciyaartiisa tuubadii biyaha kulul ayaa cilad yeelatay, biyihiina waxay noqdeen kuwa karkaraya, ilmihiina wuxuu bilaabay inuu xanuun la ooyo. Ninkii wuxuu u maleeyey in ilmuhu ooyayo inuu aabihii doonayo. isagoo ka xanaaqsan wuxuu dhegaha geliyey wax uu codka ku xidho earplugs oo sii watay ciyaartiisa. intuu ciyaarta ku mashquulsanaa, qaylada ilmuhu si tartiib ah ayay u yaraatay. markii uu ciyaarta dhammeeyey ayuu xusuustay inuu ilmaha dhar u geliyo. markuu furay albaabka musqusha wuxuu la kulmay kulayl daran iyo uryaab leh. ninku wuu naxay, laakiin xaaskiisa waxay aaday saldhigga si ay u soo qaado waalidkiis. wuxuu ka baqay in haddii ay soo laabtaan oo ay arkaan waxa dhacay ay dhibaato weyn noqon doonto. isagoo argagaxsan ayuu isku dayay inuu badbaadiyo ilmaha, balse ilmihii horay ayuu miyir la'aan u ahaa. isla waqtigaas xaaskiisa ayaa soo wacday si ay u weydiiso haddii qubaysku dhammaaday. isagoo eegaya ilmaha aan dhaqdhaqaaqin ayuu ku jawaabay haa. kadib markii uu telefoonka dhigay wuxuu isku dayay inuu ilmaha qolkii geeyo, laakiin gambaleelka albaabka ayaa dhacay. isagoo argagaxsan wuxuu ilmaha ku duubay maro oo ku qariyay miiska hoose, kadibna si degdeg ah ayuu wax u hagaajiyey ka hor inta uusan albaabka furin. waxaa timid gabadh uu xiriir la lahaa saaxiibtiis qarsoon. wuxuu isku dayay inuu iska celiyo, laakiin iyadu waxay sheegtay inay lacag u baahan tahay. si uusan arrinta ilmaha u fashilmin wuxuu isku dayay inuu dejiyo, xitaa wuxuu siiyey silsiladii dahabka ahayd ee ilmaha si ay uga tagto. markuu ka takhalusay arrintaas wuxuu ilmaha dib ugu celiyey meesha qubayska oo nadiifiyey musqusha. laakiin dhibaato kale ayaa timid. waalidkii xaaskiisa ayaa yimid. xaaskiisuna horay ayay u soo gashay markay aragtay ninkeeda oo nadiifinaya isagoo caadiyan caajis ah. waxay ka shakiday, balse markay musqusha gashay wax walba waxay ahaayeen hagaagsan. waxay xitaa dareentay inay khalad ahayd shakigeeda. kadib waxay weydiisay halka uu yaallo qalabka lagu dhegaysto ilmaha, baby monitor. ninkii markaas ayuu garwaaqsaday in wixii dhacay laga yaabo in la duubay. wuxuu xaaskiisa u diray inay cuntada ka shaqayso, isaguna wuxuu u orday qolka ilmaha si uu qalabka u soo qaato. laakiin ka hor inta uusan wax karin, qoyska oo dhan ayaa yimid. walaalka xaaskiisa ayaa dareemay ur yaab leh, ninkuna wuxuu ku marmarsiyooday inuu yahay ur doofaar. walaalku wuxuu rabay inuu arko ilmaha, laakiin ninku wuu diiday isagoo leh ilmuhu wuu seexdaa. kadib waxaa loo yeeray inay miiska yimaadaan, taas oo badbaadisay xaaladda. laakiin ninku ma xasilin. markii la siiyey hilib doofaar wuxuu ku dhacay wadne xanuun yar. xaaskiisa waxay difaacday iyadoo sheegtay inuu aad uga daalay daryeelka ilmaha. dabeecaddiisa yaabka leh ayaa walwalgelisay qof walba. hooyada sodoga ah ayaa weydiisay sababta uusan ilmaha u keenin. markii xaaskiisa isku dayday inay ilmaha qaado, ninkii si lama filaan ah ayuu u qayliyey, waan ka xumahay. dadkii oo dhan ayaa yaabay. wuxuu qirtay in gabadhii uu xiriirka la lahaa ay timid oo lacag ka dalbatay, isaguna uu siiyey silsiladii dahabka ahayd ee ilmaha. aabbaha sodoga ah oo xanaaqsan ayaa garaacay. ninkii wuxuu baryay xaaskiisa inay fursad kale siiso, isagoo ballanqaaday inuu xiriirkaas joojin doono. laakiin xaaskiisa ayaa dharbaaxday.